fadhigani oo socday muddo 10 cisho ayaa si rasmi ah loo soo gabagabeeyay waxaana gabagabadii kulanka baarlamaanka goobjoog ka ahaa madaxweynaha dalka Mauritania ahna gudoomiyaha ururka midowga Afrika Maxamed Ould Cabdilcaziz, madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni, madaxweynaha dalka Sahrawi Maxamed Cabdilcaziz, madaxweynihii hore ee Ghana Jerry Rawlings, gudoomiyihii hore baarlamaanka dalkani Koonfur Afrika haweeneyda lagu magacaabo Black Mbete, gudoomiyaal baarlamaan oo Afrikaan ah, mas'uul ka socday midowga Yurub, haweeneyda bangiga adduunka u qaabilsan Afrika Bathile Neye, gudoomiyaha baarlamaanka Asia, haweeneyda lagu magacaabo Yothoto, mas'uul ka socday golaha isutaka Ruushka Mikhail Majlov, iyo diblomaasiyiin kala duwan oo ka kala socday dowladaha caalamka. kulankani oo ahaa kulan loogu dabaaldegayay 10 sanad guuradii ka soo wareegatay aasaaskii Pan African Parliament ayaa waxaa hadallo dhaxalgal ah ka jeediyay guud ahaan madaxdii kala duwaneed ee ka soo qayb gashay kulankani, kuwa oo sheegay inay muhiim tahay in Afrika ay aayaheeda ka tashato lagana digtoonaado hagardaamada ay maleegayaan reer galbeedka. There are also important questions about how the continent can be truly independent. التي نريدها كما تريدونها إذانا بنقلة نوعية. madaxweynaha Pan African Parliament Bathile Neye oo isagu ka jeediyay kulan khudbad uu kaga hadlayay xaaladaha kala duwan ee ka jira qaaradda Afrika ayaa sheegay in loo baahan yahay in baarlamaankani uu Afrika gaarsiiyo inay Afrika noqoto hal dal yeelatana hal cod. dhan kale dooda baarlamaanka ee maalmadii talaadada ahayd ayaa waxay ku saabsaneyd nabad ku soo dabaalida wadamada dagaaladu ay ka jiraan oo lagu sheegay inay Soomaaliya ay ka soo kabanayso sidii hore, waxaana doodaas ka qayb qaatay wasiirkii hore arrimaha gudaha iyo amniga qaranka ahna mudane ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdisamed Macalin Maxamuud, isagoo sheegay in weli Soomaaliya ay u baahan tahay in laga gacan siiyo tababarada ciidamada iyo dib u dhiska hay'adaha amniga. Solution is to train the local security forces. Sarayda Maxamed Cabdalla oo kamid ah xubnaha Soomaaliya u matalaya baarlamaanka Pan Africa oo gabagabadii saxaafadda la hadashay ayaa ugu baaqday xukuumadda Soomaaliya in shirarka noocan oo kale ay ka soo qayb galayaan madaxweynayaasha iyo mas'uuliyiin matala xukuumadaha ay u soo diraan dad matala Soomaaliya, wasaaradda arrimaha dibadda ay gaarsiiso casuumaadaha u imaanaya madaxda dalka si ay dadka u matalaan. meesha hadda 5 MB taagan inta kale qof soo istaagay malaha wala civil society wala youth, marka youth keenana waa la ogyahay dhibaatada maanta hayso inay balaay iyo ururdimadi baan ee wax loogu sheego waxaan oo kale hadii laga soo qayb galiyo waxbay ogaanayaan waxbay fahmayaan, marka waxaan ka codsanayaa in shirarka aan laga kala maqnaanin. wasiirkii hore arrimaha gudaha iyo amniga qaranka mudane Cabdisamed Macalin Maxamuud oo xiritaankii shirka baarlamaanka Pan Africa la hadlay saxaafadda ayaa sheegay in Soomaaliya ay si fiican uga muuqatay kaalinteedii ay ku lahayd baarlamaanada Afrika, iyadoo ay wada joogeen 5 xubnood ay Soomaaliya ku lahayd baarlamaanka Pan Africa. gabagabadii kulanka ay ka soo qayb galeen madax kala duwan oo Afrikaan ah. anaga dhinaca Soomaaliya ahaan waxyaabo ugu muhiimsan oo aan aad u hadalno waxa kamid ahay iyada oo ay jiraan ciidamo aad u fara badan oo African Union ah oo Soomaaliya jooga, waxaan aad xildhibaanadii aan aad maxaa la yiraahdaa Pan African Parliament u soo bandhignay in waqtigan loo baahan yahay waqtiga la tageyn lahaa ciidamada amniga ee Soomaaliya oo maxaa la yiraahdaa loo heli lahaa tababar iyo qalab iyo dhaqaale loo heli lahaa sidii ay ula wareegi lahaayeen mas'uuliyadda guud ahaan dalka oo dhan. fadhigani baarlamaanka Pan Africa ugu soo gabagaboobay Koonfur Afrika ayaa ahaa kalfadhigii afraad ee kalfadhigii saddexaad ee baarlamaanka, iyadoo loogu dabaaldegay 10 sanad guuradii ka soo wareegatay markii la aasaasay baarlamaanka. mudanayaasha baarlamaanka Pan Africa iyagoo isugu yimaada sanadkiiba 2 jeer ayaa waxaa soo kala hogaamiyay ilaa 3 madaxweyne, waxaana lagu wadaa in madaxweyne cusub loogu doorto kalfadhiga soo socda, waxaana la rajeynayaa in xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ay ka qayb qaataan doorashooyinka dhici doona. Maxamed Xasan Ibrahim Matka, TV-ga caalamiga ee Somali Channel, Koonfur Afrika.